habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah Donald Trump iyo Kim Jong Un oo isu diyaarinaya inuu dhaxmaro kulan lagu tilmaamay inuu yahay kii qarniga oo Singapore ka dhacaya Spain ayaa aqbashay marka badbaado oo siday in ka badan 600 oo soo galooti ah kaasi oo ku xayirmay biyaha Mediterranean-ka iyadoo Talyaaniga iyo Maltana ay ku murmeen halka uu ku xiran lahaa waa dhalinyaro is abaabulay oo ku nool magaalada Muqdisho oo afurinaya dadka ka daahay in ay gaaraan meelihii ay ku afurin lahaayeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku adkaystay in madaxweyne Trump uusan aqbali doonin wax ka yar si dhammaystiran oo aan ka noqosho lahayn nuclear-ka looga baabi'iyo Kuuriyada Waqooyi wuxuu tilmaamay in madaxweynaha ay ka go'an tahay in uu ka fogaado wax uu ku tilmaamay heshiis daciif ah sida kuwii hore saraakiisha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa kulamo ku leh dalka Singapore ka hor shirka aan caadiga ahayn ee Kim iyo Trump haddaba waxaan dib u milicsanaynaa xiriirka xun ee dalalkan anagoo adeegsanayna muuqaalada kaydka ee BBC-da Maxamed Xaraare ayaana faahfaahinaya waa iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya Mareykanka iyo galbeedka oo dhan iyo xoogagga Soofiyeedka iyo Shiinayska oo dhanka kala ah herdanku labada Kuuriya waa uu ka weynaa waxay ahayd tusmo taariikhi ah oo dad badan ay ilaabeen bilowgii hore Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar baahsan ku ekeysay xuduudaha koonfurta iyadoo ay wararka qaar tibaaxayeen inay geysteen waxyeello ba'an amar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa hakiyay weeraradii baahsanaa ee Kuuriyada Waqooyi waxayse sii horseeday in weerar xagga cirka uu Mareykanku hogaaminayay uu ku cadaadiyay in Kuuriyada Waqooyi dib ugu noqoto xadkeeda waxaa xigay dagaal 3 sano qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 2 milyan oo qof ugu dambeyn ciidamada ayaa la kala qaaday xasuuq bini'aadan ayaa la xiriiriyay labada dhinacba hub dheeraada oo aad u fara badan ayaa lagu garaacay waqooyiga Kuuriya muddo 3 sanadooda waa hub ka badan dagaalkii labaad bariga Aasiya oo dhan intii lagu riday magaalo kasta dhulka la simay dadka waqooyiga Kuuriya Mareykanka waxay u arkaan si cad inuu cadowgooda yahay xaqiiqdii wuxuu ahaa dagaal aanan dhalin guul iyo guul darro isla markaana aanan si rasmi ah u dhamaan sanadihii tagay isaamin darrada labada dhinac ayaa mararka qaar u muuqatay rajo wanaagsan madaxweynihii hore ee Jimmy Carter ayaa isku dayay inuu dardar geliyo heshiis dhexmara labada Kuuriya sanadkii 1994 Bill Clinton ayaa isna 15 sano kadib booqday gacanka Kuuriya si uu u wanaajiyo xiriirka labada dal ha ilaawin Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay rikood heshiisyada ay ku jabiso run haddii la doonayo laakiin waan aqbalayaa muranka ah Kuuriyada Waqooyi mar kale in ay kobci doonto taa macnaheeduna waxa ay tahay Kim Jong Un in uu doonayo fursad inuu u helo waana sababta hogaamiyayaasha caalamka ay u habboon tahay in ay dhaliyaan fursad tani markii uu dhacay dagaalka labada Kuuriya wax badan ayaa isbedelay hase yeeshee dhibaatada jirta halka ayaa marba soo cusboonaanaysay iyadoo uu iminka kulan madaxeed weyn fooda inagu soo hayo wali waxa hubaal ah inaanan la saadaalin karin wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa amaanay wax uu ku tilmaamay guushii ugu horeysay oo ay gaareen kadib Spain markii ay aqbashay markabsiday 600 oo soo galooti ah oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Malta ay aqbashay doonta balse Malta waxa ay sheegtay in ay ku jirtay dhulka Talyaaniga Caaisha Afrax ayaana ka waramaysa dadkan waxay ka mid yihiin 629 qof ee laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka 120 ka mid ahna waa caruur aan cidna la socon waxa ay qayb ka yihiin dadkii lagu soo qabtay howlgal badbaadin oo isdaba joog ah oo ka dhacay xeebaha Liibiya isbuucii hore dhamaadkiisa waxaana la sheegay inay ugu yaraan 50 ka mid ah ay ku dhawaadeen dhimasho
kadib markii loo wareejiyey markabka Aquarius oo ay maamulaan dad ka shaqeeya bani'aadamnimada waxa loo ogolaaday in goobta badbaadinta ay ka tagaan oo ay aadaan dhanka waqooyi. Hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha Spain ayaa sheegay in doontu ay ku soo xiran karto xeebaha Valencia. sidoo kale dowladda Talyaaniga ayaa doonaysa in la sameeyo sharciyo adag oo ka dhan ah soo galootiga. wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga ayaa yiri Malta qofna ma aqbalayso, Faransiiska xadka ayuu ka celiyaa dadka, Isbaynna hub ayay ku ilaalisaa xadkeeda. maanta kadib Talyaanigu ma ogolaanayo tahriibinta dadka iyo ka ganacsiga socdaalka sharci darrada ah. ma ahan markii ugu horeysay ee lala xiriiriyo markabka Aquarius kuwa dadka tahriibayaalka ah ka keena waqooyiga Afrika. heshiis u dhaxeeyay Liibiya iyo Talyaaniga ayaa horseeday inay hoos u dhacdo tirada tahriibayaasha, inkastoo Talyaanigu diiwaan geliyay 13,000 oo soo galooti ah sanadkan dhexdiisa. arrinka xaqiiqdiisu waxa weeyaan in la eego halkan dad bani aadana ayaa ku jira oo u baahan in la geeyo dekadda ugu dhow. wax wal oo laga hadlo murannada sharciga, murannada kale waxa wanaagsan in arrimahaas oo dhan aan imika la eegin in la eego dadkan halkan ku dhibaataysan. waxaanan hubnaa in kuwa dadka soo tahriibiya ay arrinka ku lug leeyihiin, laakiin iyagu dadkan dan kama leh. tahriibayaasha kale oo laga soo badbaadin doono Mediterranean-ka waxaa suuragal ah inay dhibaatooyinkan oo kale ay wajahaan. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo ka galaya mobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. ugu yaraan 12 ruux ayaa dhimatay, 31 way dhaawacmeen bam isqarxin ah oo ka dhacay wasaaradda dawladeed magaalada Kaabul ee Afghanistan. kooxda la baxday dawladda Islaamka ayaa sheegatay weerarkaasi oo ku soo aaday 2 maalmood kadib markii Taliban ay ogolaadeen xabad joojintii u horeysay. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo bandhigay manhaj cusub oo loogu talagalay dugsiyada hoose ee Soomaaliya, wuxuuna dhaqan galayaa sanad dugsiyeedka dambe ee bilaabanaya bisha September. Soomaaliya ma lahayn manhaj midaysan oo ardayda ay wax ku barato tan iyo intii ay duntay xukuumaddii hore. Sacuudiga, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa Urdun siiyay $2 milyan oo gargaar ah kadib markii ay waddanka ka dhaceen dibadbaxyo gunti-geejiska looga horjeedo. tallaabooyinka lagu yaraynayo deynta tirada badan ee Urdun lagu leeyahay ayaa kor u qaaday qiimaha waxyaabaha aasaasiga. toddobaad dibadbaxya ayaa ku qasbay ra'iisul wasaarihii waddanka Urdun Hani Mulqi inuu iscasilo. inta uusan gobolka dhicin bisha Ramadaan waxay dad badan ku dadaalaan inay gaaraan halkii ay ku afuri lahaayeen. dhalinyaro Soomaali ah oo ku kortay dalalka Carabta ayaa Muqdisho ka bilaabay barnaamij ay u bixiyeen afur ku gaar oo dadka guryahooda ka gaari waaya xilliga afurka ay siiyaan biyo, timir iyo waxyaabo kale oo ay ku afuraan. BBC-da ayaana la kulantay. فكرة وحنا وين ما تكون أنا كم حكنا عيال عرب سعودي كم ما لنا سو وحنا عرقنا مساجد كحرمكم أفر وقيبنايو أيدي لقلي أنا حواي أفر كدار قفك أفر لبصينا لكن وحنا بسم الله استغفر بالله وصلنا أهانا قفك الوصية خاصة الحديث الصوص من أول ده وحاكم ده هاد إنه ده هاي يعني للصائم ما أفضل صائم فله مثل أجره يا الله هاي قف مسلم قف بسنا أفريو أجي كسكول لي هاي سو فكرة هالحاجة أنا وين ماتي وحنا جعل على وطن كي ما مقصلة بين إن فكرة كنت أنت تطبقنا markii Ramadan soo dhawaado inta la gaar Ramadan ayaa preparation sameynaa. waxaan sameynaa qaabka sanadkan u sameyn lahayn isgoosiyada targetka sameyn lahayn keeka bilaawna maxaan lacag haysanaa maxaan naga maqan sanadka koowaad maalinta koowaad maxaan ka bilaawna 100 wajib ma ka dhignaa. برسيس كان مانتي رعنا حوالي نسمي سوكعنا الله عجاهن نافيرنا بكيشان سمينا لأن بلان كان سمينا كسر عن مانت من قفر ناسينا ملاك وقيبين ضد وحي أبهين نافيرنا لأن وحاسلنا إلى مقاعدة اللي هي عند ذاك سوقاتنا عند ذا بكيش قرينا لأن واحد حرنا لأن ملاها أرس لكن ضد أبديهن ضد أهس أبدين أو يعني أسينا wax
fan oo banaanka kama helin dhalinyarada Soomaaliyeed aad u jeediin gadaashii taagan oo sameynayaan horumarkan ayaa dhexdooda iska ururiyo ummadooda Soomaaliyeedna afuriyo dadka ku koortuna la yaabin bilowga markaan qabno weerarka meelaha ku qaybinayno iyo amniga meelahan taaganahay soo naga cabsadaan ko laakiin way ku farxaan laano something oo simba dadka siinayso waa ay kana u baahan yihiin way ku farxayaan wallahi u badan tahay yani wax libsado yani ma jiro horta wax noo duciya ka badan markana wararka ciyaaraha ee aan caawa idiin hayno ciyaartoyga tenniska Rafael Nadal waxa uu sheegay inuu jecel yahay in uu dhaafo rikoorka Federer ee 20 horyaal balse wuxuu ku adkaystay in uusan ka walwalsanayn gaaristiisa. Nadal oo ciyaaraha tenniska koow ah ayaa haysta 17 horyaal oo waaweyn. ciyaaraha adduunka waxa ay bilaaban doonaan maalmo gudahood wadanka Ruushka. dalka Ruushka sanadkan ciyaaraha uu martigelin doono sidoo kale waxa uu ku howlan yahay in ay bedelaan sawirka qaldan oo ay dunidu ka aaminsan tahay. magaalooyinka ay ciyaaraha ka dhici doonaan ayaa la suray boorar dadka lagu soo dhaweynayo. hase yeeshee koox BBC-da ka socota oo booqatay ayaa dareentay jawi cabsi ah. Suhayba Maxamed Badqas ayaana inoo faahfaahinaysa warbixintan. halkan webiga Volga agtiisa waxa ku yaal dhismo cusub oo qurux badan. garoonka Nizhny Novgorod waagii Soofiyeedka dadka ajaanibta ah looma ogolayn. haddase waxa ku socda naashnaashkii u dambeeyay oo waxa la doonayaa inuu soo jiito dadka koobka adduunka u daawasho imanaya. Kremlinki oo kale baa halkan ka jira oo xataa madaxdiisii leh. waxaan filayaa in jawiga halkan uu mid weyn yahay. xiriirkeena wadamada oo dhanna waa mid saaxiibtinimo. ku soo dhawaada Nizhny Novgorod waan idin sugaynaa. laakiin sidan ayaynu la kulannay. muddadii dhammayd ee aanu halkan Nizhny joognay waxaa noo muuqatay in nala daba socday ugu yaraan hal baabuur mar kasta, mararka qaarna 3. waxaan rumaysanahay in 3daa baabuur midkood maanta oo dhanna daba socday. haatanna wuu nagu daba jiraa. waxaanu ogaanay meel kasta oo aan u dhaqaaqnaba in nala dabagelayo xataa markaan kooxda kubadda cagta ee magaaladan ka dhisan ugu tagnay xaruntooda si aan uga waraysanno in ay ku faraxsan yihiin inay garoonkan cusub ee magaalada laga dhisay marka tartanka koobka dunidu dhammaado ay la wareegayaan. labada qof ee albaabka taagan waxay noo sheegeen inay ka socdaan telefishinka dawladda oo ay doonayaan inayna waraystaan. laakiin cidna hore uguma aanan sheegin in aan halkan imaanayno. kooxdani waxa ay taageeraan ninka ugu dhaliisha badan madaxweyne Putin ee Alexei Navalny. dadka qaarkoodna waxay ii sheegeen in dalkan badanaa siyaasiyiinta mucaaradka ah xirxira in uusan mudnayn martigelinta koobka adduunka. aad ayaan uga murugaysanahay jahada uu waddanka Putin u jeediyey iyo dadka ku hareeraysan. ma waxaad jeclaan lahayd in dunidu halkan ay isugu iman? haa, dhab ahaantii haa. dibadda markaan u soo baxnay waxaan moodnay in kooxdii TV-ga ay tageen, mise waaba gabadhii oo soo socota. wax u sheegay ma ogi magaceenna balse way garanaysaa. sidee u aragtaa garoonka Nizhny Novgorod? ma ka heshay garoonka? maalintii labaadna waana la daba galay oo waxaabana la daba socday ilaa guriga uu deganaa Andriy Zakharov oo mucaarad ahaa laakiin la musaafuriyey. qofkiina waday ayaa nagu yiri sababta dalka looga eriyay waxay ahayd in uusan la hadal warbaahinta dibadda markii la qabanayay ciyaarihii Olambiga ee sanadkii 1980. KGB-da ayaa aad u daba socon jirtay Zakharov talaabadu qaadaba. 40 sano kadib annagana waana la daba socdaa oo halkaas ayay naga eegayaan. waxaas oo dhammi waxa ay ka dhacayaan dal sheegta in aanu xirxirnayn oo laakiin dunidu aanay fahmin. ruushku wuxuu doonayaa inuu tartanka koobka adduunka u adeegsado si uu sumcadiisa u wanaajiyo. aniguna waxaan halkan ku arkay nolol kale oo laga yaabo dadka dalkan booqashada ku imaanaya in aysan ogeyn. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsan wararka aan ka shaqaynaynan waxaad kala socon kartaan BBC Somali Facebook. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa aniga asxaabtaba nabad gelyo.
Thank you.